bariga dhexe ayaa mar kale ku sugan marxalad xasaasi ah oo ka baxsan hadalhayn iyo hanjabaad warbaahinta la isu mariyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus maraakiib dagaal oo si aamusan u gooshaya iyo hub istaraatiiji ah ayaa lagu soo warramayaa inuu soo galay xeebaha gobolka kuwaas oo abuuraya sawir muujinaya in khariidada amniga badda dib loo sawirayo marinada caalamiga ah ee ganacsiga kuwaasoo malaayiin foosto oo shidaal ah iyo badeecooyin kaleba maalin walba ay maraan ayaa isu bedelaya meel lagu tijaabinayo awood tiknoolajiyad iyo xeelad military haddii hal gantaal uu curyaamin karo maraakiibta diyaaradaha xambaara oo qiimahoodu balaayiin dollar yahay maxay ka dhigan tahay awoodda badeed ee Mareykanka haddii baabalmandab iyo hormus ay isku mar qalalaasa galaan yaa xakamayn doona halbowlayaasha ganacsiga adduunka ma suuragal baa in hub kaliya uu jabinayo istaraatiijiyad badeed oo qarni la dhisayay muxuu yahay gantaalka halista badan ee Ruushku farsameeyay ee ka soo muuqday dalka Yemen su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan kaga jawaabaynaa tabinteena Tifaftir Media oo aan si qoto dheer ugu qaadaa dhigayno dhacdadan iyo macluumaadka ku gadaaman ee soo dhawaada وهاجاك هدي أي تايمر كاجي وجوه الرئيسي دعوانا يصير تفافتير ميديا وحنكار رجينا إن أتكمل نقطة بعض النجوح حران عن توسو أبارنو تبنتنا وربحنا إساسات رأي أي شيء جاي إن مدحوين دونالد ترامب ودقا جيد بمليون بلارن أو عيدا كبض أمريكان كأعتاس أو لجو قياس يكو دوات صدّن يتضرب بقول كيبا أود بضة لجونا جهينا يو أجا كدو تهران تاني معها كلية دقدقاق عيدا وفرين استراتيجية marka maraakiib diyaaradaha xambaara kuwa gantaal sida iyo maraakiib difaac isku mar la isu keeno waxa la damacsan yahay ayaa ah in la abuuro saameyn xakamayn karta hawada iyo badda labadaba laakiin taariikhdu waxay muujisay in isu ururin kasta oo awood leh ay sidoo kale soo jiidanayso ka hortag miisaan culus leh xeebaha dalka Yemen waxa si isa soo taraysa looga xusay gantaalka Ruushka ee Yakhont oo sidoo kale loo yaqaano Onyx hubkan waxa si gaar ah loogu naqshadeeyay inuu beegsado maraakiibta waaweyn dhererkiisu waa ku dhawaad 9 mitir miisaankiisuna 3 tan waxa uu qaadaa madax qarxiyaal awood badan leh xawaarihiisuna wuxuu gaarayaa ku dhawaad 3000 oo kiiloomitir saacadiiba taas oo ka dhigaysa in waqtiga ka hortagiisa uu aad u yaraado laakiin qodobka ugu halista badan waa qaabka uu duulo waxa uu marayaa dusha badda masaafo aad u hooseysa ayuu ku duulayaa habkaas ayuu nidaamka raadeerka ee ciidamada badda Mareykanka ugu gooynayaa marka uu ka soo muuqdo shaashadda inta badan wuxuu joogaa masaafo aad u dhow halkii uu ku socday baabalmandab waa marin isku xira badda cas iyo badweynta Hindiya waana halbowlaha ganacsiga ee adduunka in uu mashquul noqdo ama ciriiri ahaadana waxay ka dhigan tahay in maraakiib waaweyn aysan si fudud ugu dhiiran karin marka ay halis jirto haddii goobtan lagu soo kordhiyo gantaal awood leh maraakiibta culus waxay lumin karaan faa'iidadoodii dhaqaaq iyo leexasho dhanka kale hormus waa marin kale oo istaraatiiji ah qiyaastii 100% saami weyn oo shidaalka adduunka ah ayaa halkaas mara istaraatiijiyad laba jiha ah ayaa suuragal noqon karta weerar dusha sare ka imanaya iyo halis hoos ka imanaysa sida sawaariikh laga rido maraakiib ama doonyo quusa haddii labada marin isku mar cadaadis galaan taliska Mareykanka wuxuu wajihi karaa laba kala doorasho in awoodda la isugu geeyo hal meel ama in la kala qaybiyo taas oo wiiqi karta difaaca mid kasta inkastoo halista la tilmaamayo ay culus tahay Mareykanku ma aha mid aan haysan jawaab maraakiibta casriga ah waxay adeegsadaan nidaamyo difaac oo isugu jira raadaaro horumarsan gantaalo ka hortag ah iyo xeelado marin habaabineed oo abuura bartilmaameedyo been abuura sidoo kale gantaalka Yakhont wuxuu ku tiirsan yahay xog hordhac ah haddii xogtaas la carqaladeeyo waxtarkiisa waa yaraanaya dagaalka casriga ah ma aha mid ku salaysan hal hub oo kaliya waa isku darka xog tiknoolajiyad iyo go'aan qaadasho waqtigeeda ku dhacda haddii xiisadan ay isu bedasho isku dhac toos ah saameyntu kuma koobnaan doonto dhinaca military oo kaliya suuqa shidaalka caalamka ganacsiga badda iyo dhaqaalaha dalal badan ayay si toos ah u saameyn doontaa qiimaha shidaalka ayaa kor u kici kara maraakiibta ganacsiguna waxay wajihi karaan khatar dheeraada taasi waxay abuuri kartaa cadaadis dhaqaale oo gaaraya qaarada badan haddaba ma ku dhiiran doonaa Donald Trump inuu ku riixo awood badeed oo culus meel ay ka imaan karto khatar laba jiha ah mise taliska Mareykanka waxa uu hayaa qorshayaal dahsoon oo jabin kara weerar kasta ka hor inta uusan dhicin xaqiiqadu waxay tahay in dagaalka badda ee casriga ah uu ku salaysan yahay xisaab adag mar kasta oo uu qalad dhacana cawaaqibkeeda ayaa la dhadhamin doonaa intaas ayaan ku hakineynaa tabinteena intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh hamoogaanina inaad ka mid noqotaan bahda ku xiran Tifaftir Media si aad ula socoto falanqaynteena qotada dheer ee arrimaha istaraatiijiga ah iyo amniga caalamiga ah nabad iyo warsan